Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa khiyaarey kusoo dhawaada mar kale iyo video cusub. Maanta waxaa lagu jiraa maalinkii ugu dambeysay ee transfer suuqa kala iibsiga ciyaaryahanada. Waa maalinkii ugu dambeysay, weliba saacadihii ugu dambeeyay ayaa lagu jiraa. Hase ahaatee Arsenal weli suuqa ay dhex taagan tahay oo weli waxay raadinaysaa khad dhexe, waxayna wararka soo gudbinayaan in Josh Kroenke ninkii iska lahaa Arsenal Football Club inuu Arsenal uu ku baraarujiyay inay mar kale isku dayaan lacagta ay usoo bandhigeen Brighton ee 75 milyan in lacag ay ku daraan marka ugu dambeysana ay fiiriyaan in ay heli karaan ciyaaryahanka iyo in aysan heli karinba. Aad buu ugu baraarujiyay in ay lacag ku daraan ayna fiiriyaan inay ciyaaryahanka heli karaan. Hase ahaatee waa ka war sugeynaa ciyaaryahankaas. Hase ahaatee war aad u xoog badan ayaa la hayaa oo Arsenal haddii ay Koscielny ay soo qaban weydo in ay Jorginho ay soo qaban doonto from Chelsea. Aad baa wararka oo la tacajabay markaan arkay. Hase ahaatee ilaa Sky Sport ayaa soo dhigeysay, Fabrizio Romano ayaa soo gudbinayay. Warku waaba serious ba suuqa ayuu dhex yaalaa. Hase ahaatee dad badan ayaa commentiga markaan akhrinayay waxaan arkay dad badan oo Arsenal fans ah oo ka dhiibanaya aragtidooda, kuwaasoo iskugu jiraan noocyo fara badan. Kuwa leh maxaa lagu falayaa nin 31 sano jir ah oo gameka ka dambeyso slow down gareynayo. Chelsea oo number 10 ku jirto, ruux ay nacday maxay Arsenal ay ku falaysaa. Hadalada noocaas oo ay leeyihiin Arsenal waxaa u dhaanto ciyaaryahankan in aysan soo qaadanin. Haddayba ciyaaryahan ay soo qaadanayaan in ciyaaryahan kaloo da'yaro suuqana aan future xitaa noqon karo ha raadsata Arsenal maxay u soo qaadanaysaa ninkan duqa ah ayay leeyihiin. Hase ahaatee dhanka kalena dad ayaa waxay leeyihiin haddii aan helna xitaa 6 bilood ee seasonka ka dhiman wuu na anfacayaa oo booska wuxuu noo bixinayaa hadduu Partey injury u galo. Partey oo ognahay injury recordkiisa oo ah ciyaaryahan mar walba ciyaar walba aad filan karto inuu injury uu geli karo, aan ahayn sidii Xhaka oo kale ciyaaryahan aad isku ilaaliyo. Sidaa ayay leeyihiin oo waxay leeyihiin ninkan wuxuu naga caawin karaa inaan Premier League xitaa aan qaadno 6 bilood, ayagoo markaana aan dadka qaar aansan sii ogoleen in 6 bilood wax ka dambeeya uu sii jooga clubka. Is leeyihiin 6 bilood haddii aan kusoo qaadano loan ama amaah uuna anfacayaa. Hase ahaatee anigu markii hore aan arkayba Arsenal ayaa waxay raadinaysaa Jorginho oo war waxaan isiriba waa Arsenal maxaa inaad 100 milyan aad bixisaan 105 milyan Koscielny aad ka bixisaan ayaa waxay ii dhaantaa inaad Jorginho oo hal maalin uu lugta soo dhigo Emirates saan uga xumahay darteed. Waxaa ogeen Willian Arsenal sideedaba Chelsea waxaa weeyaan qof ay nacday ma hagaago. Chelsea qof ay nacday ma hagaago. Willian baan soo qaadanay oo aan islahayn waa world class player, waa Brazilian. Ciyaartii ugu xumeed baan dheelnay marka aan garoonka aan lugtiisa aan sida usoo dhignay. Lugtiisa uu sida Emirates ugu soo dhigay. Arsenal ciyaartii adduunka ugu qaabka darneed ay dheesho xitaa aan laga ciyaarin Africa. Marka haddana markii aan commentiga aan akhriyay Koscielny aan la heli karin ciyaaryahan kale oo suuqa hadda aan u yaalan oo uusan jirin oo Tielemans weli Leicester hadda xaaladda aad ugu adag tahay relegation ay ka cararayaan oo aanan la heli karin. Waxaan isiri bal haddii xitaa 6 months ka soo socda is adkeysaan Elneny la iskuma haleyn karo. Nin mar walba la heli kara ma haddana injury ayuu daraad galay. Sidoo kale Partey isna waxaa weeyaan anaga khadka dhexe uma ka noolnahay ciyaarta Arsenal waa la fahmay. Midfield-ka haddii wax yar oo error ay ku imaato Arsenal waa u dhamaatay. Marka waxaan isiri haddii xitaa loan aan kusoo qaadano soo iibsi ma ahan, haddii aan loan kusoo qaadano waa nin Premier League si fiican u yaqaanay dhexda kaliya uu noo qabto 6 months ka anagoo weliba celcelinayna qayle iyo buuq isugu darayno war sidaa yeel Sambi Lokonga uu noo dhaami lahaa oo habeen hore ciyaartiisa aan aragnay. Marka akhyaaray maxaad ka leedihiin Jorginho in Arsenal ay soo qaadato ama 6 bilood inoo harsan seasonka ka harsan inay kusoo qaadato amaah ama loan, ama waxaa isleedahay kaas waxaa ii dhaama title la'aan lacagtan asaga ka bixin lahaa ciyaaryahan kale aan kusoo gadanaya samaga dambe ee ninka banaanka iga joogo. Wixii commentiga halkaa ayaad ula wadaagaysaan.
sidoo kale maanta active ayaan ka ahay maaragtay YouTube waa maalinka ugu dambeysay ee transfer deadline-ki weeyaan wixii warar waa idin la soo gudbin doonaa hase ahaatee wixii qaybta commentiga aad ula wadaagaysaa sidaa u aragtaan Jorginho in Arsenal ay soo qaadato haddana waxaa idinkaga tegayaa sidaa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu